hamiga iyo hawadu waa astaamaha sida aadka uga muuqda dhaqanka iyo habnololeedka aadanaha. Dumarka idiin muuqda waa kuwo maalin walba yimaada halkan oo xeebta Baraawe iyaga oo ka raadinaya macaadin uu dhaymanku ka mid yahay. dabcan waa hooyooyin ay ku jirto hawo ah inay xeebtan ka soo helaan wax ay kaga baxsadaan faqriga nolosha. intii bil waa iska rafanayaa welina waxba aan arkin male. Waakaas waxa ay raadinaysan maxay tahay? waxaa la sheegay luula la sheegay waxa la sheegay ay sheeg dhagaxman oo macnaha oo loo baahan yahay oo la gadanayo. marka hadii wixii xataa dhagaxmankii iyo hadii oo la helo xataa macnaha wax baarayna uma jeedno oo ii sheegay rajo la sugayaa waa la rajeynaa. aniga laftigayga saaka waxaan qayb ka ahay oo lahan lagu baadi goobayo dhagaxaantan lagu sheegay luulka iyo dheemanka haweenka Baraawe ay muddada raadinayeen. waxay haweenkan ay shaqadan hayaan muddo bil iyo bar ah, laakiin nasiib darro weli ma jirto cid iyaga ah oo guulaysatay oo inta ay dhagaxan meel geeyeen riyooyinkoodii ay u rumowday. Cabdullaahi waa nin maqal kala wuxuu dhinac kaga jiraa halganka lagu baadi goobaya dhagaxaantan aan la garanayn siday u eg yihiin, sidoo kalena aan loo haysan qalabkii lagu baari lahaa. ma jirto daraasad iyo baaritaan cilmiyeysan oo xeebtan ay ku kallahayaan ku sheegaya in macdan iyo dhayman laga helo, balse labada astaamood ee ka soo muuqda nolosha aadanaha ee hami iyo hawo ayaa gadaal ka riixaya. Cabdulqaadir Cabdulla Barre oo loo yaqaan injineer Cadde wuxuu ku takhasusay maadada geologiga. wuxuu aaminsan yahay haddii ay jirto macaadin si sahlan lagu heli karo inaan la arkeen cid iskaga fadhida camal la'aan. taas hadday jirto anoo injineer ah ugu hormari lahaa oo aadi lahaa oo baawaro u qaada lahaa oo aqaano oo jawaano ku soo maanta aan inta kula fadhi lahayn interview aadi arki lahaynba. marka waa wax la noqday dadka Soomaaliyeed waa iska dadaalayaan oo danta yar oo badahaas ka qaraabanayo oo xeebahaas yacni dhagax birbirqayso iyo wax dhalaalay inay arkaan isdhahay mise dad wargeliyay yacni waxaan waa dahab mise waa luul kaalaya lagu soo ordo hal daldasho ila ma aha aniga aad ila ma aha inay jiraan wax saas oo kala oo maarta qiimo badan leh markay adduunka oo dhan ku soo yaacay meel dahab laga helo xeebahooda aan Soomaaliya lagu sheegay. دائما واي معناه waxa laga diiday waa buqsantahay kaliya loo diiday dائما waa ka dheeman kan dائما waa la bijiin cool shakhsiyaad waxaa jira ka haray ololahan hase ahaatee weli haysta dhagaxaantii ay badda ka soo faageen. Cabdiwahaab Aadan ayaana ka mid ah dadkaasi. midka aan hadda aan gacanta ku hayo nina igu dhahay waa dayman laakiin wax ma galo garaamaadkiisa yar. haddana maalintii kale waa baxay waxaan soo helay kan waxa la yiraahdaa mina ugeey ninkii aan ugeey wuxuu yiri war sugbal baalka dhagaxan waxa la dhahaa waxa laga sameeyaa nuclear laga sameeyaa waa isku naxay marka aniga nuclear laga sameeyaa haye baadiisan ku xiray marka waxaan is dhahay Cabdiwahaab nuclear hadii laga sameeyo bahalkan soo garaafo idin gaarsan maayo soo dhib maahan gaalada hadii nuclear ka sameeyo ma idin ku soo tuurayo waxba dad ha u sheegin ha tusin aan dhahay qari. khayraadka ku jira dhulka waxay u kala baxaan mid uur ku jir ah iyo mid oogadayaal sida ay sheegaan qaar ka mid ah culimada ku xeel dheer arrimahan. hase ahaatee in labadaasba laga faa'iideysto waxay u baahan tahay aqoon iyo awood dhaqaale. waa kana mar kale injineer Cadde. geology horta waa runta waa mid hoos jirto oo qodmo lagu gaaro iyo farsamo technical ah oo badan iyo mid haraac amal ah oo soo harto oo jabjabkeeda kor yimaado marka ay soo socdaan kor yimaado ayaa jirto. marka mana badna qiimo badanna ma laha karto midaas kor ka jirto. haweenkan markii hore noloshooda waxa ay ku tiirsanayd xirfado yaryar oo ay ka mid yihiin dhaqaal. hase ahaatee hadda waxa ku jirta hawo kale taasoo ay dareensan yihiin amaba ay isleeyihiin waxay wax ka bedeli doontaa guud ahaan noloshiina. Maxamuud Soofeysana, Telefishinka Universal, Muqdisho.